Maanta waxaan ka ambabaxaynaa jasiiradda weyn ee Malta anagoo safar u ah Gozo oo ah jasiiradda labaad ee ugu weyn dalka Malta. Waxaa marka hore qaadanaynaa baska na geyn lahaa deegaanka Chirkawa halkaas oo aan ka raaci doono Gozo Channel Ferry oo ah markabka dalxiiska ee isku xira Malta iyo Gozo. Safarkan badda ah wuxuu qaadanayaa qiyaastii 20 ilaa 25 daqiiqo waxaana inta lagu jiro safarka laga daawan karaa muuqaalo qurux badan oo badda Mediterranean-ka ah, doomaha yaryar iyo jasiiradaha ku hareeraysan Malta. Dad badan ayaa safarkan u isticmaala dalxiis, shaqo iyo in ay ku nastaan jawiga degan ee Gozo. Gozo waxaa lagu yaqaanaa xeebaha dabiiciga ah, buuraha iyo beeraha cagaaran, taariikhda qadiimiga ah iyo magaalooyinka quruxda badan sida Victoria. Jasiiraddan yar waxay caan ku tahay degenaansho iyo nolol ka duwan mashquulka Malta, taasi oo ka dhigaysa meel ay si weyn u jecel yihiin dalxiisayaasha caalamka. Safarkeena maanta waxaan idinkugu soo bandhigi doonaa sida loo raaco ferry-ga Gozo, muuqaalka dekedda Magar, goobaha ugu quruxda badan ee Gozo iyo nolosha dadka ku nool jasiiraddan taariikhiga ah. Haddii aad xiisaysaan muuqaalkeena, fadlan channelka subscribe dheh, like saar, sidoo kalena la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan wixii fikir ama talo ah qaybta hoose noogu reeb. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. saaxiibayaal, hadda waxaan joogaa meesha laga raaco markabka weyn oo markaasi na geyn lahaa jasiirad oo markaa ku dhex taala waddanka jasiiradda ah ee Malta. waa Goza ayaa la lahaa. marka goosada ayaana tegi doonaa oo halkaasi ayaa muuqaal qurux badan idinkaga soo gudbin doonaa. gudaha ayaan tegaynaa, tikidaan jaran doonaa. tikidka markaa jarano markabkii aan raacayna insha Allah. markabka waxaa naloo sheegay inuu ka dhiman yahay yacni 30 daqiiqo. waa kaasaa markabka wuu socdaa dabcan oo ujeedaan markabkaa sugaynaa insha Allah. saaxiibayaal, hadda waxaan soo galnay gudihii waxaan qaadanaynaa markabka oo na geyn lahaa Goza. marka waan soconaa hadda hadduu ilaahay ka raali noqdo. goosada sida ay tahay waan isla soo arki doona hadduu ilaahay ka raali noqdo. dadkaan naga xoreeyaanna muuqaal ayay doowanayaan. dabcan wankaa ka baxayna geed wanka insha Allah. waa tahay saaxiibayaal, waxaan qaadanaynaa markabkii markabka laidin sheegay saaxiibayaal waa maqaayad caadi ah meelaan aadna waxaan raadinaynaa kuraastaa fadhiisan waa tahay saaxiibayaal, hadda markabkii waa soo fuulnay oo meeshii ka bixi lahaa yacni xoogaa yaraa ka dhamay 8 saac 15 daqiiqo oo bixi doonaa. koraan fuuleynaa qaybta kore ayaa ka fiican oo xaggaasi waxay leedahay view. ugu dambeyn waxaan soo fuulnay markabkii oo na geyn lahaa Goza, laakiin weli ma dhaqaaqin. qaybta kore ayaa soo fuulnay oo waxaan idin tusi doonaa magaalada ama jasiiradda Goza oo ku dhex taala waddanka Malta. waa jasiirad kale oo yar, aad u yar. Goza waxaa taga dalxiisayaal aad u fara badan. markabka hadda saaranahay waxaa saaran boqolaal dalxiisayaal iyo maalgawaaridooda. waxaan tegi doonaa gedii kale oo markaasi oo ah Goza. marka insha Allah ina mariya qaybta kale markabkaan tegi doonaa. markabka waa kana waxaa loogu dalgala qaybta lamaanaha halkaan dhinaca kale cameraman halkaan kale u jeedaan. waa hadda markab dabcan uu dhaqaaqay. saaxiibayaal, waa dhaqaaqnay oo hadda markabka waad aragtaa wuu socdaa. sida la ii sheegay markabka wuxuu soconayaa daqiiq 30 ilaa 20 daqiiqo ayaan waxaan u socon doonaa Goza oo ah jasiirad aad u qurux badan oo taariikh fogna leh. goobo waxaa ku yaala qadiimi ah, guryo qadiimi ah ku yaalo. meelahaasaa tegi doonaa oo gudaha ayaan u geli doonaa. muuqaalo aad iyo aad u qurux badan ayaanu idiin soo gudbin doonaa. idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalka meel fog aad gaarsiisaan. Lento music.
saaxiib yaal qaybta hoos aan u soo degay qaybtii koreen ma aragteen yacni daweel aan caadi ahayn ka jirtay ma fahanteen marka doontii hadda waa soo dhownahay kuley hadda waxyar kadib waxaan joognaa Goza daqiiqada kadib insha Allah waa joognaa marka markabkii aan saaranahay markabka wuxuu ku yaal maqaayado iyo leeyahay aan caadi ahayn waxaa kamid ah maqaayadaha aan u jeedo dabcan meeshaan waa doontii waa taasoo dabcan markabkii aan saaranahay weli wuu socdaa marka waxaan idin leeyahay Gozada isla taagno isla soo aragno wixii kala kulanno kuley waa markii ugu horeyso aan imaado Goza ugu dambeyn waxaan imaanay jasiiradii yareed oo markaasi hoos imaado dalka Malta oo markaasi lagu magacaabo Goza doontii hadda waxaa loo tuuray Brozin ama xarigi doontu istaagaysa dabcan waan idin tusi doonaa waa kaasa Brozinkeeda xarigi waa kuwan ayaa shaqadooda way qabsadeen already xarigi weena waa Brozinka marka insha Allah midka kalena gadaala lagaga xirayaa doontii kale ayaa waa taas oo jida Malta doontaas waxay u socotaa Malta ay u socotaa waxaa u soo baxnay banaanka waxaan joognaa gudaha Goza waa Centerville-ka ama townka magaalada Goza ayaan joognaa waxaan booqan doonaa goobaha taariikhiga iyo meelaha ay caanka ay ku tahay magaaladan hadda dhulkan aan socono dhan waa bad waay saxaabe ya meeshaan aan dhex socono waa bad waxaan tegaynaa gudaha ayaan galaynaa magaalada meesha ku socono oo kala dabcan oo daqaldan aan ku soconay ruuraha inaan fuulna noqonaysa waa kuwana guryaha Goza waxaa waaye wadooyinkii ku yar meeshaan baabuurada iyo dadkii meesha way qaado waaye marka luuqluuqa soo marnay wadada kor waa baabuurada unba maraa xaggaas marka waa kana qaaradii madoobeedaan joognaa umaleesaaba Afrika jaranjaradaan aan fuuleynaa korkaasaan maraynaa marka hadda waa kuwana meeshaan waa Malta halkeeda waa sidaa magaalada dhinacaasay jirtaa weli dalcadaa soo fuulnay magaalada oo dhan waxay naga martaa ujeedaa dabcan hoos ay naga jirtaa marka hadda weli waa noo sii dhiban tahay waa sii soconaynaa insha Allah basasaa ka shaqeeyo wadadii marka aad ay u yartahay meel la maro ma lahan meesha ay dadka maraan iyo meesha baabuurada maraan aad ay u kala duwan yihiin wadada ku yar ma fahanteen halkaan aad soo maray meeshaan waxa waaye halisteeda ay leedahay wadankan dhulkiya ku yar marka waxa waaye labo baabuur isma dhaafi karaan dadkii marka waxa waaye way dhiban yihiin ya meeshaan bal ilaahay idin kugu dhaarshee ma leeslaha Yurub joognaa ma dhihi karnaa ya meeshaan waxa fiir waa Goza Allah qof bin aadi inaa ku nool mumaleysaan day waa laga qaxay umaleysaan dagaalkii sukayna ka dhaca mudda meesha watana saanay noqoto baadiyihii aad arki jirteen kuyo baroobi iyo ya janaal beerahooda waa saan Victoria dhinacaas ay naga jirtaa marka waa kana saaxiib marka si socona weli yaraan oo dhiman meeshaas aad tageena kor muuqaal kor ka soo duubayna kadibna waxaan sameeynaa inaan hor si socona isku dayana waxaan rabnaa xaggaas inaad tagno intaad xaggaas aad tageena wixii marka ka dambeeyo insha Allah waxaana dib ugu laaban doonaa magaaladeena ayaana dib ugu laaban doonaa oo markaasi ah wadanka Malta ticket kala jaranayna ticket markaa jarano markabkii aan qaadanaynaa waxa hadda u qaadan doonaa meeshaan ka qaadanaynaa ilaa Valletta oo ah caasimadda dalka Malta marka meeshii hadda way ka sii dhaweed ma fahanteen bas soo qaadanay zeedo fogtahay
halkan waxaa loogu talagalay in waqti lagu qaato oo dadka deegaanka ah iyo dalxiisayaashaba. waa goob runtii aad u qurux badan, badii xaggaas aad ka arkaysaa, doogdooga digaagii xaggaas jooga feeri dooro. ya asxaabta waxaan joognaa Goza oo xagga ugu sareysa ayaan joognaa oo dalcadii ah oo magaalka oo dhan halkaana laga arki karaa. halkan naga dambayso waa dikadii dabcan oo arkaa markabka hadda aan qaadan doono oo faleetana geli lahaa halkan ayaan ka qaadan doonaa insha Allah hadduu Ilaahay ka raali noqdo. sidoo kale halkan oo hoosta naga hooseysa waxa waaye waa dooradii iyo digaagii ayaa halkan lagu xanaaneeyaa. sababtoo ah waxaad arkaysaa doogaan badii oo ka fogeen, waa maasha Allah. marka hadda waxaan tegaynaa meelaha dhinaca kale oo noo dhiman. meesha kale dabcan waa nala aragteen saaxiibayaal. dhismahaas naga dambeeyo waa dhismo qadiimi ah, waxay ahaan jirtay kaniisad, laakiin hadda ma isticmaalaan oo lama adeegsado. waxaa wanaagsan marar qaar in oo la baxo oo safar la galo. mar walba inaa hal meel aad joogto waa laga yara fiican yahay. haddii aad awoodo waxaa qurux badan inaad iska soo yara dalxiisto oo tilaabo qaado oo maataana wadano iyo waxaad soo baranaysaa waayo aragnimo ka soo qaadaysaa safarka badan. marka waa iga talo insha Allah. hadda meesha aan mareen waxaa waaye waa xaafadaha Goza ayaan dhex mareynaa. waa kana waxaa malaysaan day waa kana halkan wax walba waa ka helaysaa oo wadankeena ka helaheene wuu yaalaa. wax walba oo Soomaali yaal halkan wuu yaalaa. tiinka yaal tiin ya guryaha qaabka u dhisan halkan xoogaa waxay shabahaysaa dhismo ahaan wadamada Carabta. ya saanay u dhisan dhismo ahaan. marka meeshan Liibiya waxay u jirtaa diyaarad waa 2 saac bar waaye. halkan waxaa loogu dalgalay konton basaacadii inuu ku socdaa. waxaan aadeynaa wadanka ma naqaano oo iska soconaa, ma fahanteen? iska socda inda adeegnimadaas ka waramaba. Goza waa tana Goza haddaad maqasheen waa duurkan caadi ah, waa duur iyo magaalo iyo wax walba way tahay. jasiiraddu waxaan 4 gees badaa ka jirto. ya wax socda ma leh, aniga keligayga socdo, laamiga anaa socnaa. marka gudahaasaan galaynaa. المهراج اوكي koraan fuuleena baadiyaha tagana waxaa kala soo kulanno tiinkiina waa kana saa idin sheegayba. idin salaanay waan idin salaanay anigoo Sayid Abu ah. xagee joognaa ya geedaha cudug iyo ayaa isoo galaya caraf. wallaahi bilaahi qaraariyabka ama qaaday quruxdeeda iga hoo waxaan iga hoo waxaan dib ugu laabanaynaa magaalada. badiyaan tegaynaa oo meesha tikadaan jaranaynaa. kadib waxaan dib ugu laaban doonaa xaafadeena ama meeshaan ka imaanay Malta ayaan dib ugu laabanaynaa. laakiin hadda Malta waa joognaa, waa Malta ayayna ka mid tahay halkan, laakiin waa jasiirad oo gooni ah. marka isla jasiirad kale weeyaan. marka Malta ayaana hoos tagtaa. fahanteen? Goza keligay meeshaan lugeenahay maanta baadiyaha. yaraan asxaabna isla soconay, marka saaxiibkii ahaa wuu iga heray. marka waxaan ku dhahay naso muuqaalkii iska soo duuban oo ku soo laabanaa. marka meeshii ku sii sugaya waa kana wadanka waa kana leedii sheegay wasaan. dadka meel ay degaan ayay la yihiin. annagayna
wallaahi dhulkii intuu naga batay maanta meel kala gelan la'anahay dhulkeena. Marka Soomaaliyay wadankeena dhista ma wadankeena quruxsada aan ka gudubno qabyaalad iyo qabiil iyo yaa aan iska dayno insha Allah. Haddaan nahay Soomaali adduunka waxaa la rabaa inaan ka hormarno inaan midowno. Baatay hadda magaalka soo gala xoogaa laamiga weyn ayaa ku soo dhacay markaana laamiga xoogaa haddaaba macquul ah meeshaan waa meel cidlo kaligaa sooco ka war inna lillahi gosa waa yaranaysanaynaa kadibna waxaa dib ugu laabanaynaa markabkeeni tikadka ayaa jaranaynaa tikadka markaa jarano waxaan aadaynaa Valletta oo ah caasimadda dalka jasiiradda ah ee Malta. Asxaabta waxaan dib ugu laabanaynaa Malta waxaana goosanaynaa tikadkii insha Allah. Okay, Zan. We need a Turco, yes. yeah, one. Yeah, Kaka. Yeah. Okay, thank you. Asxaabta tikadka soo goosanay waa kana waa adiga laba tikad waa 9 euro iyo waxa waaye 30 senti. Tikadka halkaan ayaan u saari doonaa kadib la gali karnaa ma fahad marka ina mariya kana saaraysa asxaabta gudihii yaa soo galnay markabka daqiiqada ka dhiman markabkaana sugeynaa kadib insha Allah dhaqaaqi doona hadduu Ilaahay kana noqdo. Haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadka muuqaalka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. fadlan channelka subscribe dhe like saar asxaabtaadana la wadaag wixii fikir ahna commentiga inagu reeb inta aan muuqaal lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.